الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. waxaynu bilaabaynaa casharo taxane ah oo ku saabsan mucjizooyinka qur'aanka iyo inuu qur'aanka laftiisu yahay mucjizada ugu weyn ee ilaahay caalamkan ama kownkiisa u soo dejiyey ayaynu bilaabi doonaa in shaa allahu tacaala. waxaynu leenahay mahadoo dhan waxa iska leh ilaaha subxaanahu wa tacaala inaga dhigay khayra ummatin ukhrijat linnaas. allaala wuxuu ummada soo diray ilaa iyo aadam calayhi assalaam ummadda ugu khayrka badan. waxaynu ilaahay ugu mahadnaqaynaayoo kale inuu inaga dhigay ummaddii la kulanta sharciga ilaahay midkiisii ugu taamsanaa, sharcigii ugu dhammayska tirnaa ummaddii la kulantay inuu inaga yeelo, kaas oo ah qur'aanka. ummad walba sidaynu ognahay wuxuu alla siiyey subxaanahu wa tacaala sharc iyo minhaaj ayuu ummad walba siiyey, siduu alla yidhi casa wajalla likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja. ummad kasta waxaanu siinay buu yidhi oo idinka mid ah sharc iyo minhaaj. walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxida, balse hadduu alla rabo wuxuu idinka dhigi lahaa ummad keliya oo kitaab keliya iyo sharci keliya iyo manhaj keliya leh. sidaa wuxuu alla u falay oo uu idinka yeeli waayey ummad keliya inuu ogaado ummadihiina tii raacaysa sharciga iyo manhajka ilaahay u soo dejiyey iyo tii aan raaci doonin. manhajka markaa iyo sharciga ama shareecada uu ilaahay inaga ina siiyey ummatu muxamed salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh waxa weeye mid uu alla yidhi musadiqan limaa bayna yadayhi wa muhayminan calayh wa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaq. nebi muxamedow kitaabka xaq ah ayaanu kugu soo dejinnay, kitaabkaasoo ah musadiqan limaa bayna yadayhi min alkitaabi wa muhayminan calayh, kitaabkaasoo ah mid rumaynaya wixii xaqa ahaa ee kutubtii isaga ka horeysay ku sugnaa, wa muhayminan calayh welibana ah mid kaydiye ah ama xafido ah, ilaaliya wixii xaqa ahaa ee kutubtaa hore ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sugay oo dhan. waa mid u kaydinaya, xaqa ilaalinaya. muxuu ka ilaalinayaa? taxriif iyo nisyaan iyo wax allaala wixii bedelaya oo dhan. waa kitaab muhaymin ah oo ilaalinaya in ay lumaan ama uu lumo xaqii kutubtaa inaga horeysay ku sugnaa, in la ilaabo, in taxriif lagu sameeyo la bedelo, sida ay mar walba yuhuuddu isku daydo iyo dadka gargaara mar kasta in ay qur'aanka u bedelaan sidii ay u bedeleen kutubtii inaga horeysay ee injiil iyo maxay ahayd towra ahayd. balse ilaahay baa kitaabkan ilaalinaya oo way bedeli kari waayeen ilaa maalintii nebi moxamed calayhi afdal asalaatu wasalaam lagu soo dejiyey ilaa maantadaa aynu joogno. way isku dayayaan inay bedelaan, balse way kari la-yihiin, waayo ilaahay baa ilaalinaya. kitaabkaa uu ilaahay ina siiyey iyo sharcigaa inaga ina siiyey ilaahay, walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wuxuu ka marakacayaa oo kale kutubtii hore ee ilaahay ku soo dejiyey ambiyadii nebi moxamed calayhi afdal asalaatu wasalaam ka horeysay in ay ahaayeen kutub xaq ah oo ka timid min cindi illaahi tabaaraka wa tacaala. wuxuu kaluu rumaynayaa musadiqan limaa bayna yadayhi, yusadiq ana aladii jaaa bihi alambiyaau bihi lam yafturuuha min cindi anfusihim. in wuxuu rumaynayaa oo kale
kana marakacaya kitaabka qur'aanka in waxyigii uu ambiyadii nebi maxamed ka horeysay oo dhan ilaahay ku soo dejiyey kuwoodii aan la taxriifinin inay yihiin kutub sax ah oo ilaahay xaggiisa ka timid wuxuu kaloo kitaabkeenan yahay uu ilaahay inagu manaystay caza wajalla in uu yahay diin kaamil ah diintii dhammayska tirnayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu talagalay addoomihiisa bani aadamka ah oo dhammi iyo jinkuba inay ku dhaqmaan oo ay ugu dhaqmaan dhinaca caqiidada dhinaca cibaadada dhinaca akhlaaqda dhinaca mucaamalaadka iyo dhinaca wixii kasta ee ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli gelinaya dhammaan sidaas darteedna aanu qofka mu'minkii marnaba kitaabkaa ka maarmin waayo noloshiisii uu ilaahay ku caabudayay caqiidadii uu rumaysnaa ee ilaahay tawxiidkiisa ku salaysnayd akhlaaqdiiskii iyo mucaamalaadkiisii iyo wax walba kitaabkaasi waa midkii u hogaaminayay inuu ku noolaado nolol sacaadata daarayn ah if iyo aakhiraba sidaas darteed mu'minku marnaba kama maarmo kitaabkaa maxay ahayd qur'aanka ah kitaabkaas waa mucjisada ugu weyn wax allaala wuxuu mucjiso ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rususha u siiyey waynu ognahay oo nebi kasta ama rasuul kasta mucjisuu siiyey mucjisooyin buu alla siiyey uu ku taageerayo in ay mucjisooyinkaas u xaqiijiyaan bani aadamka uu u soo diray nebiga in ay xaqiiqsadaan inuu yahay mursal ilaahay xaggiisa ka soo diray una noqoto caddayn u caddaynaysa iyaga in ay raacaan oo wixii uu ugu yeedhay ay la yimaadaan waxa kale oo dadkaasu uu yahay mucjisada uu mucjiso kastuu ilaahay ambiyada iyo rususha siiyey waxay tahay oo kale mid u xaqiijinaysa in ambiyada iyo mursaliinta uu ilaahay amray in waxyiga uu ku soo dejiyey amar uu ku siiyey inay gaadhsiiyaan dadka sidaas darteed nebi walba iyo rasuul walba ilaahay wuxuu siiyey mucjisooyin ha yaraadaan hase badnaadaane balse nebigeenna calayhi afdalu salaatu wasalaam waxa weeye midka mucjisooyinka ugu badan uu ilaahay siiyey waxaa ka mida alisraa walmicraaj waxaa ka mida dayaxa oo laba u kala jabay waxaa ka mida farahiisa oo biyo ka soo da-een intaasoo jeer oo ay arkeen mararka qaarkood boqolaal asxaabtii ka midii ku weysaysteen farihii biyihii farihiisa ka soo da-ayey farahiisa dhexdooda cunto ay la cuneen oo barakowday oo badatay oo iyadoo wax yara gaadhay intaas oo boqol oo qof xayawaan u cawday rasuulka calayhi salaatu wasalaam cudurro uu bodsiiyey sida cali bnu abi aalib oo indhaha ay kaga dhacday daaf mar ka mid ah iyo qaar kaleba balse mucjisooyinka uu ilaahay siiyey rasuulkeenna faraha badan ee aan la koobi karin maye faraha badan aan leeyahay waa la koobi karaa waxa ugu weyn mucjisada qur'aanka oo ah mucjiso wax allaala wixii uu siiyey mucjisooyin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay oo dhan mid shiikhisay oo sidaas darteed ay noqdeen dee marka loo eego qur'aanka marka la dhinac dhigo kuwo aan sii mudnayn waxaa ka mida maalan ilaahay wuxuu yidhi fii suurati الracd acuudu biاllahi min الshayطaani الrajiim low ana qur'aana suyirat bihi اljibaal aw quطicat bihi اlardu aw kullima bihi اlmowta bal lilaahi اlamru jamiica haddii uu jiro qur'aan suyirat bihi اljibaal buuraha lagaga rari karo meelahay ku sugan yihiin oo buur halkaa ku taalla maxay ahayd buurtaa naasa hablood
لجينيو دعر برق أما قبيلي هدو جرو قرآن لجرري كربورها ماشي كيالان أو قطعت به الأرض أما أوتيرو قرآن أرلضع دولكا عين فوشناي كبدا maxay ahayd aynu saarannahay laba loogu kala jeexi karo hadduu jiro qur'aan laba loogu kala jeexi karo sidii hidayx oo laba ugu kala jabay aw kullima bihi almawta ama hadduu jiro qur'aan dadka dhintay lagula hadli karo intay maqlaan ay magaranaysa ay maqlayaan hadduu jiro waa qur'aanka ilaahay ku soo dejiyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam way alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaa mahad leh allah inaga yeelay ummadii qur'aanka fadliga iyo sharafta leh uu ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulansiiyey nebi kasta mucjizada uu ilaahay siiyey wakhti bay leedahay oo maalan ushii nebi ciise waxaan leeyahay nebi muuse calayhi salaam haddii maanta la helo oo la soo qaado oo dhagax lagu taabto ama buur dhagax ku yaala lagu taabto biyo ka soo baxaya ma jiraan haddii badda sidaa loogu dhuftana kala jeexi mayso waayo wakhtigeedu wuu expire garoobo u dhammaado mucjizo kasta oo ilaahay siiyey ambiyadii nebi maxamed ka horreysay way istaagtay rasuulkeenna calayhi afdalu salaatu wasalaam mucjizada qur'aanka ah ee uu ku manaystay ومعجزة خالدة إلى يوم القيامة ومعجزة ولقيت شريسة إلى إيو مالنت قيامة ومعجزة لنعيو بدن مركعات كيكتو معجزة وهي قرآنكو وقتي رسولك عليه أفضل الصلاة والسلام عربت وحي هيد سوبر باور بي هيد marka laga eego dhinaca balaaqada iyo fasaaxada super power macni waxa weeye adduunka gabay buu tirinayaa qof boqor baa lagu dejinayaa oo xukunka laga qaadaya mid baktiyo meelaha iska joogay buu gabay u tirinayaa boqortooyuu ku gaarsiinayaa halkaasuu gaaray gabayga powerkiisu iyo hadalka iyo shacirka iyo balaaqada iyo fasaaxadu ceyrkaasay gaadhay wuxuu keenay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aan afkii ay ku hadlayeen ku hadlaya oo yidhi fa'tuu بعشر صور من مثله فأتوا بصورة من مثله لقي مادة طبعا آيادود أو كلية أو لمد قرآنك أما صورة لمد صورة سيدة قول أعوذ برب الناس هبقى بناته حتى لي مادة ويلي من كروايا حتى وحي وايا انت وحي اسكو صور دبان اسكو صور تشبيان إن إلهان واتن وحي لمدها إلهي سبحانه وتعالى أودا حتى وكا كرقادا وايو عربتي بريغا جوجتي هدي أي وحي اسكو صور تشبيان إلهان واتن وحاسا لمدها إلى عربي دي ويقانان ويكري كروايا وايو وحي أقيهين قرآن كا إريدي ساسو إن آن وحل الله إمن كرآن وهين fasaaxadii iyo balaaqadii bay ka gaareen heer aad u sareeya dabeetana markay maqlaan waxay xaqiiqsadeen in aan wax la mid ihi jirin ciidina keeni karin sidaas darteed iskuma baydayn waayo waxay og yihiin wax ku dhow xitaa inaanay keeni karin xaraf kasta alif ba ta oo qur'aanka ku jira waa mucjizo weeye bartu alla dhigay ijaaz ciida ka badan baa ku jira erey kasta oo qur'aanka ka mid ihi waa mucjiz weeye aayad kasta oo qur'aanka ka mid ihi waa mucjiz weeye mucjiz macnihi waxa weeye wax aan cidina awoodi karin lala iman karin wax u dhowna aan la keeni karin kitaabka oo dhammi intuu ka tiro la egyahay bilowgiisa ilaa iyo aakhirkiisa waa mucjizooyin aayaad buu alla yidhi waa aayaad qur'aan waa mucjizooyin weeye aayad bilowgiisa ilaa kitaabka dhammaadkiisu waa wacda mucjizo sida aynu hore u soo sheegnay ambiyada markuu ilaahay soo dirayo nebi kasta qowmkiisu wuxuu ku tabaxuray ku xeel dheeraaday
wax la mid ah ama ka wanaagsan ayuu maxay ahayd uga dhigi jiray mucjizo qaarkood. مثلا nebi muuse calayhi salaam cahdigiisii bani aadamku waxay ku xeel dheeraadeen sixirka. muxuu alla siiyey subxaanahu wa tacaala ul yar oo wixii ay sixir soo dhadhabeen ay ku soo xiiqeen oo dhan liqday. khalaas de sixir ka weyni markaa ma jiro. sixir maaha, laakiin iyaga sixir ka weyni ma jiro. ushaas way iskaga hadheen markaasoo khalaas way jabeen. nebiyullaahi ciisa wakhtigiisii dadku waxay xariif ku ahaayeen oo ku xeel dheeraayeen dawada. dabeetana wuxuu soo diray nebi ciise calayhi salaatu wasalaam. ilaahay wuxuu u barastii oo ay ka quusteen oo aan wax allaala wax daweeye ay quus ka gaadheen ayuu daweeyey biidni illaahi tacaala, idanka ilaahay darti. kuwii indhaa lahaa buu indhaa u furay idanka darti, xataa ilaa xad uu gaadhay sidaynu ognahay in uu dad dhintay soo nooleeyey biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. marka wixii kii wax sheegan lahaa ee dhakhtarnimo iyo dawo sheegan lahaaba dawuu iska hadhay. waaye waxaynu leenahay markaa bal aan yaro sharaxnay maxay tahay mucjizo. mucjizo waxay tahay shay khaariq lilcaada, shay ka baxsan caadada bani aadamku yaqaano ee caqligoodu koobi karo, ka baxsan sunanka kowniga ah ee adduunyadana ku socoto. maalan dhagax haddii kor loo tuuro hoos buu usoo dhacaya, waa sunna kowniya oo la wada og yahay. dhagax la tuuray hadduu soo noqon waayo waa mucjizo, waa wax khaariq lilcaada ah. mucjisadu waxa weeye wax ka baxsan asbaabta maadiga ah aynu naqaano, fysigiska iyo chemistryga iyo maxay ahayd wax kasta ka baxsan oo bani aadamka asbaabta aynu naqaano. laba ugee waa 4 waynu naqaanaa. laakiin haddii laba ugee ay noqoto 3 ama 6 waxay noqonaysaa shay khaariq lilcaada ah. waa midda afraade mucjiso waxay tahay wax ka baxsan maqaayiista bani aadamku wax ku qiyaaso. wax kastoo inuu wax ku qiyaasno wixii ka baxsan ayaa mucjiso noqonaya. waa midda shanaade mucjisadaasu shayga mucjiso la yidhaaho waa wax ku yimaada gacan nebi ama rasuul oo keliya. aan ku celiyataa mucjizo waxa weeye shay khaariq lilcaada ah sidaynu sheegnay, shay khilaafsan caadada bani aadamku yaqaan, sunanka kowniga ah, ikhtilaafsan asbaabtaynu naqaano oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku keenay ama gacanta u geliyey nebi ama rasuul. sababtu ugu geliyey ama uu rasuulka iyo nebiga u siiyeyna ay tahay in bani aadamkii uu u soo diray, ummaddii uu u soo diray in ay rumaysato in uu yahay min cindi illaahi tabaaraka wa tacaala. mucjisadaas waxay noqon kartaa bilqowli aw bilficli aw bitark. inay noqoto qowl sida qur'aanka oo kale, inay noqoto ficil sida casaa muusa calayhi salaam, ushii nebi muuse, inayso noqoto bitark aw bilcadam, wax laga gudbay ama la joojiyey wax dhici lahaa sida maxay ahayd ixraaqu nnaari biibraahiima calayhi salaam. sida nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam dabkii lagu tuuray oo aynu ognahay dabku wixii lagu riday inuu gubo oo gubi waayey. tarki ixraaq aw alcadam biixraaqi ibraahiima calayhi salaam. sidaas weeye mucjizo. casharka halkaasaynu kasii wadi doonaa. allah subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo kuwii qur'aanka ilaahay ku soo dejiyey ee mucjisada ugu weynee khaalidka ah kuwii barta, kuwii ku dhaqma, kuwii raaca. allana haynaga yeelo ummadda uu yidhi ku sharfay khayra ummatin ukhrijat linnaas, inaynu noqonno
ummad aan leeyahay qof ka mid ah ummaddaas sharafta iyo khayrka alla siiyey. wallahu aclam. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.